tegey daawashada xaaraamta maanta ubadkayagu maxay daawanayaan dhallinyarooy maxaa daawanaya waa dariiqa jahannama waa dariiqa naarta waa dariiqa kufriga waa dariiqa iimaan la'aanta waa dariiqa daaca la'aanta waa dariiqaas annaguna waa arag xumaanta musalsalaadka la raacraaco idaacadaha facebooka lagala socdo barooniga hoobaleenta fanaaniinta kuwii u gaaloobaan arag masaajidka cumar ibnu khadaab suuqa xoolaha aniga nina iigu yimi dhallinyaraan anuu iiyi maahan sheeko iyo waa la ii sheegay anuu iiyi wuxuu ihi shiikh anugu hadda kahor waa gaaloobay laftigaasu leey wiil qurux badan wey laakiin markaas waa toobad keenay oo dambu ii imaanay maxaa kugu dhacayaan wuxuu yidhi waxaan aad u raacraaci jiray cayaaraha barooniga inaan dhegaysto inaan aqriyo galabtii casirkii soo cayaaro waxa weeye cayaartooyda xifdiyo magacyadooda naagaha ay saaxiibbada leeyihiin waxaasan dana socon jiray markii dambe waxaan jeclaaday noloshayda adduun inaan noqdo cayaartooy qofka baa nolosha waxbuu doorta wuxuu yidhi muddaan joogay waxaan arkaa amaan dhegaysay amaan daawana kooxible ninka cayaartooyka laacibkaayo ka mid aha waa la gato intaasaa lagu gato kooxiblea la wareegto hebelna waa la gato heble xagga loo gato kooxible xaggay ka duuleenoo waddan hebelay ka soo cayaareen aniga wuxuu wax igadana iyo wax ila hadlaa waa waayi markaasaan is-iriiri islaamnimadaa lagu nacay aan is-iriiri ee haddaad gaal tahay waa lagu gadalaha mar hor ama waxaa lagu dari lahaa wafdi baxa cayaartooy meel u baxayn huteela degida waxaad ka soo cayaaraheed waddamo kale markaasaan gaaloobay saas hooye ma ogin aabana ma ogeynaan gaal muxamed ay iska leeyiin waana joon waxaa meesha fadhiya joona meesha fadhiya muxamed uu iska leeyahay hooy yaabarta wuxuu yidhi bal ilaahay naxariistiisa ilaahay naxariis badana wuxuu yidhi markaan gaaloobay aa ilaahay hurdadii iga siiyey hurdadii alla iga qaatay wuxuu yidhi galabtii waa soo cayaara fiidkii daawashaan bilaaba markay dadku seexdaana dhalada ag fadhiya ayadaasaan daawana ayadaan fira waagu markay uwajigaan maydhaa muslimku markay tukadaan waa taga aabbahaas wiilkiis inuu galaya xataa ma oga firihi mas-uuliyad xumaad inuu tukado inuu soo jeeday xataa warka ma hayo uur inta iska tago aan meel looga sheekayna cayaarta taga xalay kooxiblaa cayaaray intaasoo goolay kale in goolka hebela u dhaliyey hebel allaad fiicna hebela ka laad fiicna hebel si xun u laaday hebel waa qalday waxaasan ka sheekayna hebelii saaxiibadeen oo wadna waa akrina beerad sheegeen hebel allaad fiicna hebel saan u wad duurkii la gaar xabaaran kana soo doonaa casirkiina meel lagu cayaarayo iska aadan soddon maalina ii dhammaatay ama marna indha isku hal markaasaan isriir amaad waalataa intaan kadib haddaan soo jeedo hurdana islaamnima u soqaya markaasaan ta cararay oo masaajid tegayaan tukaday aan wuxuu yidhi iska dhegaysta cashar la akhraa waa dad qur-aanka la baray fiiri marka hurdadii wuxuu yidhi markaan islaamay nisaa ii soo laaba habeenkii nisaan seexaa inta kale waa soo jeeda adiga waxaan kuugu yidhi sheekh arrintaas kale shaqo kumeli laakiin waxaan kuugu yimid niska iga maqan waa ku iga jira hurdada niska iga maqan anugu waa toobadkeena waa islaam ma toobadaydiyaan ansixin niskaas waa ku jira niska horta meelu jira ilaaha yaqaan adiga dembi weynaad gashay soomaa waa gaalowda haddaad soo islaamtay nis alle hadduu ku siiyey ma alxamdulilah inta jira alla kabari alle xaggiisu jiraa dembi weynna waa gashay alla waa kuu naxariista intaan alla uga shukri alla xaggiisay jirtaa niskii yaa alla ka tug dadkana hawsha markaas ka horna nin shii oo iga horreeyey oo u tegaya ii sheega aniga
waxaan ku yidhi qof dambena ha u tegin oo ha u sheegin dadka inaad gaalowdo iska aamus muddadiina xagga rabbiya jirta ilaahay bari marka maxaan ula jeedaa hadalka maxaan ula jeedaa maxaa gaalaysiiyey rabitaankiisu daba socdo dad aan la ogolayn shaqo aan la ogolayn uu dabagalo gaal in la dhegaysto maantoo dhan la akriyo in la jeclaado sidiisa loo labisto sidiisa tinta loo jarto ma ilaaha ogol nabigeenna suuban soo markii sala allahu calayh wasalam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhu qofkii qolo isku ekaysiiyaa ayagu ka mid nabigu soo markii sala allahu calayh wasalam man tashabbaha biqayrina falaysa minna qofka isku ekaysiya gaalada annaga muslimkaa naga mid maa soo nabigu ma dhihin sala rabitaankiisu waa og yahay nabigu isleey laakiin rabitaankiisu daba socda idan badbaadadu waa maxay naftaada jihaad la gal waxa ay rabto ilaahna uusan ogolayn ka reeb